sida aan horay idinkugu ballan qaadnay maanta waxaan bilaabeynaa sheekadii xayaat qaybta koowaad. Sheekadan waxay soo geli doontaa labada ama sideedda habeennimo cishaha kadib, insha allah habeen kasta marka laga reebo habeenka jimcaha. Aan bilaabno like saar muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta ha iloobin. Qaybta koowaad sheekada xayaat aan bilaabno. Qays aabihii waxa uu u dhintay kansarka caloosha. Waxaa isagoo yar soo korsaday adeerkii aabihii la dhashay Daa'uud. Marka Qays aabihii dhimanayay, Qays uurka ayaa lagu siday, laakiin nasiib darro Qays xitaa ma arkin hooyadiisa oo way umul raacday. Isaga ayaana qoyskaasi u yaraa una weynaa. Qays waxa uu ahaa wiil dhan kasta ka firfircoon, furfuran, aad u gacan furan, weliba garashadiisu aad u sareyso. Adeerkii Daa'uud oo ahaa nin ganacsada caan ka ah magaalada uu degan yahay ayaa aad u jeclaa Qays. Waxa uuna markasta caruurtiisa ku gubaabiyaa inay noqdaan Qays oo kale. Xaaji Daa'uud waxa uu dhalay 2 wiil iyo gabar. Gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa Xayaat. Waa curadda ilmaha uu dhalay. Xayaat waxay aad isu walaashadaan Qays maadaama ay hal guri ku wada koreen, ilma adeer yihiin. Sidoo kale waxay ahaayeen saaxiibo si gaar ah sirta isugu qarsada. Xaaji Daa'uud waa ganacsade aad u yaqaana nolosha, weliba nolosha ka soo bilaabay meel hoose. Dadaal dheer kadibna wuxuu noqday magaalada uu degan yahay nin looga dambeeyo xagga ganacsiga. Marka ganacsi lasoo hadal qaadana waa dadka ugu horeeya ee lasoo hadal qabto. Xaaji Daa'uud waxay saaxiibo yihiin Garaad oo asagana ah nin ay aad u saaxiibo yihiin, weliba isla soo jabhadeeyeen, laakiin labadoodu fikir ahaan aad ayay u kala duwan yihiin. Garaad wuxuu aaminsan yahay in caruurta uu dhalay ay guursan karaan faqiir iyo taajir midka isfahmaan, laakiin Xaaji Daa'uud taas waa uu ka duwan yahay. Xitaa ma jecla gurigiisa inay yimaadaan caruurta deriska, gaar ahaan kuwa level ahaan isaga ka hooseeya, balse aad ayuu u soo dhoweeyaa caruurta ka soo jeeda qoysaska hantida leh marka ay gurigiisa yimaadaan. Xayaat waxay ka shaqaysaa xafiis gaar ah oo uu aabaheed leeyahay, maamulna uga dhigay. Waa gabar gelinna wax barata, gelinna xafiiska maamula ka ah. Sidoo kale xafiiska isagana waxaa gelinka kale ka shaqeeya Qays maadaama isagu galab dhigto jaamacadda, Xayaatna ay subaxdii dhigato jaamacadda. Xayaat iyo Qays waxay isugu yimaadaan xisaabta shaqada oo keliya. Waxaa yaraaday saaxiibtinimadoodii khaaska ahayd maadaama marka mid jaamacad aado kan kale xafiiska aadayo. Xayaat maadaama xafiiska aabaheed si khaas ah uu leeyahay, waxay bilowday inay xafiiska dib u habeyn ku samayso iyadoo aan fasax weydiisan aabaheeda. Xaaji Daa'uud ayaa dhammaan qoyskiisa shir gaar ah u qabtay. Waxa uuna u sheegay inuu safar aadayo muddo bil ahna soo maqnaanayo, qofna uu ka rabo inuu hawsha iyo waajibkiisa loo igmaday uu guto. Marka shirkii dhammaaday, qof kastana qolkiisa gaarka ah ayuu gadaal u galay. Xayaat ayaa fariin yar u soo qortay Qays iyadoo ku dhahaysa bixista aabe ma ku dareemaysaa farxad. Qays ayaa isla markiiba arkay fariinta, wuxuuna u soo qoray maya, waayo waxaan jeclahay inuu nala joogo. Waxayba isla markiiba u soo qortay waxaan dareemayaa farxad sababtoo ah wiil aan jeclahay ayaan rabaa inaan waqti wada qaadano, waana fursad aan wiilkaasi wax kasta kula qaybsan karo. Qays ayaa isagoo dhoola cadaynaya si degan u yiri, jacaylka ha kuu dambeeyay, horta waajibka aabaha kaa rabo gudo, nin lama weynayo ee marka hore wax qabso. Hadalka Qays saameyn badan ayuu ku yeeshay Xayaat, waxayna iyadoo dareen hadlaysa tiri, ninka aan jeclahay ma ahan mid ay shaqo kasta iga hor istaagi karto, waayo isaga ayaan wax kasta igala muhiimsan. Qays wuxuu fahmay in gabadha saameyn ku yeeshay hadalkiisa, wuxuuna bilaabay inuu u qalbi qaboojiyo isagoo ku yiri, adiga ayaa wax kasta ka muhiimsan, ninka ku helana waa nin nasiib leh. Waxaan rajeynayaa inaad farxad ku wada qaadataan nolosha inta ka dhiman. Xayaat ayaa aad u faraxday, waxay iyadoo dhoola cadaynaysa ku tiri, inta aad fahmayso inuu fahmi doono ayaan rajeynayaa, sida adiga aad u tahay wiil wanaagsanna inuu isaguna wiil wanaagsan u noqon doono ayaan rajeynayaa. Qays ayaa war uga baxay hadalka Xayaat, wuxuuna dareemay in gabadha wiilka iyada kaliya ay jeceshahay, balse aysan hubin inuu isagu jecel yahay amaba aysan u sheegan jacaylkeeda. Isagoo garashadiisa ka duulaya ayuu si degan u yiri, jacaylkaaga inaadan u sheegan ayay la tahay. Iyaduna waxay u soo qortay, waan dareensiiyey laakiin toos uguma sheegan. Maalmaha soo socda ayaan rabaa inaan tuso heerka uu la eg yahay jacaylkaan isaga u qabo. waa waqti dambo aan seexano ayuu Qays Xayaat fariin ahaan ugu soo qoray iyaduna waxay ku soo jawaab celisay caawa inaan seexda igama hayso isaga ayaan ka fakarayaa in badan
sheekada marka ay halkaas marayso qays telka ayuu silent iska saaray wuxuuna bilaabay inuu hurdo. xayaad iyaduna ma seexan, waxayna dareemaysay farxad gaar ah maadaama aabeed fasax aadayo, wiilka ay jeceshana waqti gaar ah ay isu heli doonaan. qays ayaa subaxdii marka uu ka soo kacay talka soo qabtay. haddii talka uu furayba waxa uu arkay. la soco qaybta labaad habeen dambe insha allah xilligan oo kale. waad ku mahadsantahay daawashadaada. like saar haddii aadan